iyadoo ay maalintii shalahayd ilaa xalay roobyo kala duwan ka daayeen gobolka Awdal iyo walibana sidoo kale xeebaha ku teedsan gobolka ayaa waxay roobabkaasi geysteen khasaare naf iyo maal waxa ka warbixiyay khasaaraha ay roobabkaasi geysteen iyo walibana sidoo kale dhibaatada ka soo kordhay roobabkaasi barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali isla markaana ka warbixiyay khasaaraha inta dhimasho iyo dhaawac ay geysteen roobabkani ayaa waxa uu yiri inuu dhici doono roob dabaylo iyo duufaan wata qaybaha gobolka qayb ka mid ah iyo xeebaha kale ee Somaliland sida Sanaag iyo wixii ka sheeya inagu intaan ka warqabno ama intaan xukuno waxaan maanta isugu yeelay hay'adihii kuwii localka ahaa iyo kuwii caalamiga ahaaba oo awal baan shir jiray laakiin shirkani uu ahaa shir emergency ah oo bishan Ramadaan nooguma jirin aanu shiro bishan meel ilaado waxa keentay markaa roobkii uu daay gobolka sida lagu haya iyo Baki wuxuu ka daay uu ka dhacay dhibaatadu ha kala yaraatee dhibaatana uu geystay taas ay ka mid yihiin xoolaha oo soo sheegay inuu xoolihii aad iyo aad u riiqmeen ama uu waxyeelay ama dhimashada xoolo aad badantay iyo dhimashada dadku runtii labada degmo inta aanu ka warhayno ilaa hadda waxay maraysaa ilaa 14 qof oo gargaara oo lagu haya kamida iyo degmada Baki inta kale oo ah gargaara 8 qof baa imika mala ku dhintay 6 qof ma nuhumno lugaya wali wax isgaarsiina oo amba telefoon aan noqoto ama nooc kale ma noqoto oo laga haya meesha la yaado lugaya siday u bilaabantay shalay aroortii baa cid ugu dambeysay wixii ka dambeeyay wax dhintay iyo wax nool cid ugu ma jirto laakiin qayb kamid ah oo gargaara ah baa la hayaa dhimasho 8 qof sida la sheegayo dabadeed meesha Baki la yiraahdo waxa laga soo sheegayaa dhimasho ilaa 7 qof ah oo dhowr meelood oo kala duwan ah oo ay kamid tahay meesha la yiraahdo Dabiicad oo dhimashada hal qof lagu sheegayo xamarta hogeed oo isna nin lagu sheegay hal nin boorka gelin golool oo hal nin lagu sheegayo qabuurta meel la yiraahdo 3 qof lagu sheegay inta ayaa dhimashadooda la soo sheegay iyo meesha gargaar la yiraahdo oo 6 qof lagu sheegayo 2 qofna lug hayada kale 2 qofna lug hayada kale degmada qaybeeda kale lagu sheegayo 8 qof xoolaha way dhinteen dhagaxaas iyo lug haya iyo gargaare intaba xoolo way dhinteen beeraha Baki baanu hadeer telefoonkeeda toos wayna Baki beerihii oo ugu badnaa way baabeen haday kinaada tahay haday sarac tahay haday dhulkiiba tahayba dooxyo ka dhigay roobka mudada daayay iyada khasaaraheedii telefoonnadeedii baanu haynaa waxyeelada inta leeg markii la noo soo sheegay qaar aanu ka war laanahay wali waxaan go'aansanay nagaadihu inaanu horta 2 qodob labada qodob wax allaale wixii tiimam caafimaad ee imika diyaara in la diro total saaka way bixin haday tahay World Vision waa Shucayb Maxamed kaan Shucaybiga TV-ga caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.